badanaa ma jecli inaan internetka daraamo ka socota ka qayb qaato laakiin daraamaan kaa daba geynaya xalay lifekayga waxaan soo qabtay oo soo codsaday mid ka mid ah dhalinyarada caamada ah ee waxbana aan qorin waxna akhrin laakiin anigu aan iskaga camiro sometimes markuu lifekayga soo qabsado xaliye aan iskaga camiraa waa u camirtaa waraa xaliye wax weji uu leeyahay malaa ka waran ku soo xaliye yaa u camirtaa marka yaa waa kaas oo garyaqaan la dhaho ninkan caadi garyaqaan waxna ma akhriyo waxna ma qoro waa iska ogeenba kaas qof kale inaa soo wada u maleynaayo oo cusub garyaqaan leemiya ay ku soo afal xaliye muxuu sameeyay garyaqaan dhalinyarada ay soo qabsatay taageeraha ayaa uu ka mid yahay waan iska sheekaysanayay tartiib liveka game iyo waxba la iska ciyaarayay intii hawshaas lagu guda jiray ninkan wuxuu sameynayay attack iyo weeraro gooniya oo uu uladan leeyahay isagoo aniga raba inuu isticmaalo platformkayga dhalinyaro ay uu kow ka yahay Bilaal Bulshaawi Jabra tuubaraac TikTok ta xaliyo la imaaday tuubaraac iyo dhiiqo inuu xaliyo geliyo qabyaalad iyo afaaro Jabra iyo dhalinyaradii de iska baashaaleysay rabaa inuu ku falanqeeyo meesha xaliye uu xaliyo rabaa inuu dhiiqo geliyo ay maxaa ka dambeeyay xaliyo qaysar iyo dhakhtar badana waad aragtay mawduucyadan ka hadla waxaa waa Jabra qaysar iyo dhakhtar raggaas waa rag social media jawigooda ku qaataan buuq uma baahno marka raggaas uu rabay inuu tuubaraaco hay maxaa sameysay marka xaliye shaxda naagaha iyo dhalinyarada noloshooda inay kor u qaadaan iyo waxyaaba noocaasa saasay tahay wuxuu rabaa inuu isticmaalo informationka aniga aan si general u bixinayay oo uu dhalinyaradan korka ka saaro isagoo u tuubaraacaya rabana inuu aniga iyo raggaas isku hayo xawilo halka waxa uusan fahansanayn laakiin adiga gaas isku kiini dir rabo marka macnaha uu madax isku kiin gelin rabo wuxuu rabay inuu dhiiqo ku geliyo wuxuu isku maleeyay inuu ka aqli badeeyo laakiin waxaa tustay in of low level uu yahay oo de u camireysa sida hore u sheegtaba waxa uu kala ogayaa zero marka sida caadiga ah xaliye waa ninkaas nooca ah dadka levelkooda ku qiimeeyaa ninkaas qashin qubku caadi u dhiga toos waana barti uu u qalmay garyaqaan ninka la dhaho barti uu u qalmay u dhiga xaliye hay xaliye ku soco uusan fahansanayn laakiin waxay tahay qofka markuu caamo yahay oo aad fahansan tahay waxaan uu samaynayo way adag tahay inuu isagu fahmay in la fahansan yahay way adag tahay qofkan inaad ka dhaadhiciso inaad fahansan tahay waa ku fahmay xaliye si fiican ku soco dhalinyaradaas oo dhan horumarkooda internetka inay iska baashaalaan in meelaha ay lifefkooda iska soo qabsadaan uu ninkan ka xun yahay xarash ugu haya darteed lifekaygu imaaday wuxuu rabaa inuu u tuubaraaco oo aniga madaxa ii geliyo laakiin cilada jirto waxay tahay waan arkaa isaga wuxuu samaynayo waan la socdaa halka waxaan ku fahansiinaya waxay tahay qabiil iyo kaadh qabiiladoo isticmaalaya ha isku dayin inaad kala dishid dhalinyarada Soomaaliyeed garyaqaan sidaa ogtihiinba waa nin weyn oo adiga 40kii haduu fin galay meeshaan wuxuu ugu jira tuubaraac sidii ayaan dhaweyd aan ka soo hadalnay gabar iyo wiilka Tamiim la dhaho Tuushi la dhaho ayuu u tuubaraacayay oo uu isaga iyo xaaskiisa gabadhaas iyo wiilka uu isku diraayo qortu isku gelinayo uu dambi oga dhigay gabadha inay Hargeysa ka leeyahay oo ogolaanin asaga amar lagama rabo waxaan looma baahno iyo tuubaraac asay ku kala dhaadhaan marka dadka noocaas ah xaliye inuu wax u sheego uu ku saxsan yahay xaliyow waa maasan tahay macallin ku soco dadka dhalinyarta ku kala dilahayo hab qabiil oo u kala sheekeynayo oo adiga hadana ku soo doonanahay ayaga malbanaanadooda may ku haystaan ogumaada tigin meeshaad intuu kugu imaaday ayaa wuxuu rabaa inuu dhalinyarta horta kugu geliyo raggaas aan qabiil iyo waxba aqaanin oo qaysar iyo dhakhtar horta ay qabiil shaqo kuma wala haba Jabra laga yaabaa malmar inuu ku simbirraxoodo Jabraana kaftanay ka tahay inta badan balse ninka la dhaho dhakhtar iyo ninka la dhaho qaysar qabyaalad iyo qabiil shuqul iyo shaqo ay ku leeyihiin malaha jawigooda qaataan marka inuu u tuubaraaco oo page-kaadi waliba uu waxa ku sameeyo adiga oo uu ku og yahay inaad xaliye tahay ayaaba gaf kala ah waa wax la yaabo in xaliye aad waxa oo la tagto garyaqaanow adoo aan ku ogeyn caqligaada iyo sidaa tahay iyo nooca u samaysan tahay da'daada iyo caqligaada ee cabaar kala weyn yihiin da'da ay jirto iyo caqliga ku jiro ayaa aad uga hooseeya da'daada way taraaraxday da'da isbiira ku furtay oo waa tagtay 40 baa hadda dhaaftayba di 50kii waa ku sii dhowdahay caqligaadana waxa ku furan slow motion marka xaninkan ka aqli badan aqoonyahanka professor xaliye ina afaarahaas oo la tagto oo maanta dhalinyar yar oo adiga
afar jeer saddex jeer kaa yar yar oo generationkaada ahayn oo Gen Z ah inaa ugu tuubaraacdo page-ka xaliye intuu ku sharfay uu soo qabtay live uu ku keenay game soo dalba uu ku dhahay uu ku kala kicinayay oo wax uu ku sheegay inuu wax ku sheego isku dayay balse waa ka faa'iideysan weeday faa'iidadii baa waxa u fahantay inaad tuubaraac samayso oo dhalinyar ah ku dhaga hadasho adiga aad kaaga yar yar marka xaliyana waxa ma qaato sidiisaba xaliye waxa loolama tago waa kana waxa tuu noo sheegaya xaliyana waa ninkii dee runta ku taqaaneen aad looga xumaado waay anigana guud ahaan dhalinyarada dhabaan maxallin u ahay adigana waxbara lagu kari waaye caamanimadan ka bax waxbara laguma karo videogan repost taabo share garay la wadaag si ay dad badan wax uga fahmaan wax bara laga kari waaye waa lagu sheegay wax bara laguma karo markii uu live ka soo qabsan badan oo rabay inay ku qaldaan waxay taagan yihiin garyaqaan maxaa la jiray waa qaldi lahayna ninaa wax u daadinayo macallin waa haystaa xaaladda wax xumaatay soo dalba game soo dalba game soo dalba la dhahay waa la sharfay maarta kuwana waa sugayay kuwa qaan wadaniina jira mid Xuseen Awjili lama istaqaanin lasdo may waa aqoon mali asaga ahaantiisa laakiin meelaha inuu ka cayta ma arkaa waa aragtaa miya okay maxaanu ku dheelaynaa marka ninka la xalliyo aan kala baxnay quick let's say haddaad qof sugaysay caadi waxa waaye 2 or 3 saddex gacmood 3 best of 3 ciyaarina hay okay let's do waka game lagu casuumay let's go allah waa loo camira waa sidoo haday u sheegahayba waa u camirahayay waa soo dhaweeyay ardaydeedu kamid ahaa waa run ardayda xalliyo kamid yahay ninkan laakiin wuxuu isku dayay inuu u tuubaraaco ardayda xalliyo oo laakiin damiiniinta ah oo aan xalliyo waxba ka faa'iidin sababtoo ah xalliyo cashiro iyo waxa uu ka hadlo uu ka faa'iideysan lahaa oo maanta uu ka faa'iidi lahaa waxaas ula muutageen macalinka ma fahamtay marka wuxuu u muuqdaa nin aan ka faa'iideysanin xalliyo macallinnimadiisa iyo macallinkii uu u noqday aan ka faa'iideysanin oo xalliyo uu ku qasaaray maanta xalliyo wuxuu leeyahay ninkan waan ku qasaaray macallinnimadii iyo wixii aan u noqday adi maalinka lagu dhaho hadda aragtid xalliyo oo internetka oo dhan laga amaanayo naa kasta oo Soomaali ay wadato isoo caaynaada maxaa khalday soo weydii maxaa xisaabta halka ka khalday soo weydii adi waa gartay naaguhu haddii ay kaa jaakiraan ka waran ay ku tira adiga ma soo kaalay karo iga joog waa beed waa ku rabtaa waxba jira always hal mid ay jirtabo horta hal waxayna faataan basically language-ka naga isticmaala kala laba waa adi markaa naag rabti maxaa dhahe qofta waa raadina waa ku rabaa leeda maano naagaha saas maaha naagaha ninkay ka hesho oo maxaa la dhihi jiray nafta ay u hayso waxay kula dhaw waa kaas horta waa nacbaha yes micnii waxayba kuwa kaleeta markii la joogto adiga naagaha kale markay isla joogaan ninkaas waxay leedahay kaas wal waaye ma rabi wallahi bilaa ninkaas ma jecel shahaari waaye kulada asayna rabtaaya always ma sheegaan firi language-ka naga isticmaalaan always toos ma wax ma sheegaan idinka toos ha sugaysiin adi waxa sugayda lagu imaado in lagu dhawaaqo rabaa maya qalab waa naag waa ku rabaa ilaa anigu ma fahmay waa u jaakiraa taas inkasto Brian adiga xogaa say wallahi do kale waxa waay xogaa waa magaaladii faansiin soo ku imaana live ku imaana caadi waxa waay shoot your shot ay dhahan gaalada alaabtaas halkan Mareykan horta qofta ayadaaba ku soo galay xalliye isbeesir hatta basiira uu ku hadlo wallahi xalliye macallinnimadiisu u muujiyay ninkan inuu hoos uu asaga ka hooseeyo oo uu macallin u yahay uu tusaayana uu barooya xalliye waa legend ninkaas in badan buu muddo macallin u soo ahaa live ku casuumay waxa dhaafay game soo qabso ila dheel uu sharfay dhiiqu dhax istaajiyay dhiiqadii buu xalliye ka hadlayo uu leeyahay ninka dhiiqadii uu igeliyay iyo kan uu leeyahay xalliye horta wax fiican ah sameysay ninkaasna wax dad badan baa runta u sheegay laakiin uu qaadan waayay maanta kulli adiga markii aad u sheegtay macallinkiisa ahaa oo meesha soo fariistay aa ku faashirtay kulli dadkana adigana way ku aaminahayaan oo maadaama asaga afkiisa uu ka cadeystay inaa macallinkiisa tahay sida caadiga ah marka niyo waa ku maadsan tahay inaad dadka u soo bandhigto ninkan ay maran oo eberka ah oo meesha iska dhex fadhiyo qabyaalad meesha u joogo dhalinyarta inuu madaxa isku geliyo hebel u tuubaraac kana inta ka booday jabraasaan yeelay ashrafa niikiyey ashrafa dabada laga xiiray Brazilian waxing loo sameeyay waxaas dhalinta kula dhex jiro in aad dadka u soo bandhigtay oo markii hore waa la ogaayay hadda ay caadi u soo qarxisay waa ku maadsan tahay xalliye bartara ka salaamaya legend
horey u soco. YouTube-ka haddaa ku cusub tihiin asxaabay subscribe noo saara channelka, like, share and comment. YouTube-ka wuu hooseeyaa dabcan subscribe-kiisa, marka haddii aad ku cusub tahay waxaan kaa codsanaynaa inaad subscribe noo saarto. laguguma charge garanayo wax lacag ah inaad subscribe saarto awgeed, marka fadlan it is free of charge. subscribe noo saar, kor noo qaado. aad iyo aadna waa u mahadsantihiin guys. Peace.